بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي مالي وناكسن waxaan rabaa inaan idin wadaago waa maxay fahamka nolosha. Fahamka nolosha waa wax faraha ku jira ee aadan meel dheer ka fiirinaynin, hase yeeshee dadku fahansaneen. Tusaale ahaan dadka lamaanayaasha ah waxay inta badan ku wareersan yihiin wax la dhaho fahamka nolosha. taasina ma ahan sida ayaga u fahansan yihiin waa si ka duwan. Faham darada idin haysa waxay tahay in eedan doonayninba inaad adinka isfahantaan. maxaa yeelay wiilku wuxuu ku dhahayaa ma fahmayo xaaskayga, gabadhina waxay ku leedahay ma fahmayo saygayga. waa maxay fahamka kale aad raadinaysid ee adiga agtaada yaalo? fahamka nolosha waxay tahay marka hore inaad samaysatid farxadda. tusaale ahaan dhoola cadeynta. ogsoono dhoola cadeyntu wax weyn ayay nolosha ka tartaa. maxaa yeelay wiilku markuu gurigiisa yimaado waxaa looga baahan yahay in uu xaaskiisa u dhoola cadeeyo oo si qurux badan u salaamo. sidaas si la midana ay gabadhii ayadana si wanaagsan oo qurux badan ee ugu soo celisaa dhoola cadeys kale, aysan ka xanaaqin, aysan waxyaabo kale u muujinin. sidoo kale waxaa looga baahan yahay subax markuu wiilka shaqada aadayo gurigiisa uu ka tagaayo si farxad iyo dhoola cadeyn inuu guriga ka tagaa. gabadhana sidaas si la mid ah ay ku soo goodisaa. ma ahan in la kala jeesto waqtiga la rabo. fahamka nolosha lagu sheegaa maaha inaad saaxiibadaada iyo dadka aad la shaqaysid iyo dadka kaleeto ee xiriirada kala dhexeeyaan inaad la qosashid. guriyahaagana markaad timaadid inaad wajiga bedelatid. sidaas daraadeed waxaa leeyahay asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha leh adinkeena commentiga igula wadaaga maxaad u taqaanaan fahamka nolosha. waxaan raadinaa wax la yiraahdo romantic oo naga maqan. waxaan u maleynayaa dalka la yiraahdo Talyaaniga inuu jiro, laakiin jawaabtu waa maya. wuxuu ku jiraa insaadkeena ama gudaheena ayuu ku jiraa romantic anaga aan raadinayno. ogsoono diintuna wax kasta way ku idil yihiin. fahamka diinta ayaa ugu horeeya haddii aad rabtid fahamka nolosha. kulama aad diinta fahantid iyo dhaqankeeda iyo waxay ku amrayso nolosha oo idil waa aad fahamtay. kulama aadan fahmin waxyaabaha diinta ay ka reebtay noloshana ma fahmaysid. waxaad dareemi doontaa ciriiri iyo dhibaato badan. marka hore Allihii ku abuurtay u mahad celi, alxamdulillaah dheh. marka labaadna waxa lagu siiyay ku shukrina, waxa lagu siiyay ku qanac. qofka nolosha aad la wadaagaysidna ku qanac in uu yahay qaybtii Alle. labada dhanna ma xigsanaayo. subxaanallah. asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha leh, biliis yaanan filimaanta ay soo dhigahayaan dadkan gaalada yaanan u maleynin waxyaabo jiro oo nolosha xaqiiqada ah. nolosha runta ah waxaa haysta qofka muslimka ah. nolosha runta ah waxaa haysta qofka fahma diinta. farxadda runta ah waxaa haysta iyo fahamka xaqiiqada ah qofka ku dhaqma diinta. waxa ay fartana ku fartoomay, waxa ay ka reebtana ka reebtoomo. intaas oo kaliya waaya. laguma oranin banaanada kasoo sheekay gurigaaga marka imaadin sariirtaada ama qolka fadhiga ku ekow. gabaray adna laguma oranin taleefoonada kula hadal asxaabtaada iyo dadkaaga la qosol, gurigaagana ka aamus. run ahaantii Google gareey please fahamka nolosha. waxyaabo badan ayaa nii saaciidi doona jariiradaha waxyaabaha ay ka qoreen haddii aad aragtaan waad la yaabaysaan. laakiin anaga fahamka nolosha gudaheena isagoo ku jiro maxay tahay sababta aan meelo kale uga raadino? maxay tahay sababta aan ugu qanaceynin wixii Ilaahay noo soo qorsheeyay? maxay tahay sababta aan uga mahad celinayno waxa Allah subxaanahu wa ta'ala oo na siiyo oo nimco iyo barwaaqo ah? waa ayaan daro Soomaa. وإذن جعلها أصحابه إلهني بركة الله يحفظه ولا شيء نعمنا معنا وإذن والي ونكسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.